بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان إخواني دمان أصحابتي وحوران كان فرحان حسن أدمن دمانتين ديوض السلام يا ما أنتو عن جالستين إدلو ذاقو إن شاء الله استاد موبيل كاغا ودي كريسا ميد حواريسو آنو إنبا عادي أهين أو كليك ميشا ساوسيسو ay si ay u soo boodaysaa runtii markaan ku leeyahay moobilkaaga xawaarihiisu sareeyaan ka dhigayaa ma aha ram baa la kordhinayaa application baasaan la oranayaa wax noocaasa ma laakiin waa qeyb moobilka ku jirta oo developer la yidhaahdo deetana meeshaasu moobilka iyo ay khusaysaa markaad click siiso suu moobilku maxay ahaaday reactionka uu moobilku sameynayo ay khusaysaa marka ma application ma isticmaalno wax kale ma sameeyno okay markaan casharka insha Allah guda galno marka ugu horeysa moobilkaaga setting-ka tag setting-kaaga markuu saas kala soo furmo hoos wad about raadi meesha about ku taalo about markaad hesho moobilkayga waa G7 marka moobilada kala duwan waxaad raadinaysaa meesha ku qoran tahay bulli number moobilada kala duwan meeshaas raadinaysaa ay ku qoran yihiin magacaas bulli number war hadda soo lama arko bulli number moobilkaaga ka raadi about markaad gasho about umbuud ka dhaxlaysaa bulli number marka about ka dhex raadi about ay ku sii kala duwan marka kayga waa G7 G7 oo ta about marka soo gasho waxaad ka raadaysaa iyadana software info deetana develop bulli number bataas ka helaysaa deetana bulli number waxaad ku dhufataa 7 jeer ilaa 8 jeer saa ugu dhufo bulli number 7 jeer ama ilaa 8 jeer click 8 click siinaysaa ama 7 click aad bulli number siinaysaa war hadda ma la fahmaa 8 jeer ama maxay ahaydey 7 jeer adoo ilaa intuu developer option kugu sameysmayo developer option ka qayb la yiraahdo ayaa soo sameysata moobilka marka hore male laakiin marka 7 jeer ku dhufato bulli number way sameysmaysaa hadda soo aragta wuxuu leeyahay aniga no need developer option mode has already been enabled already waa lagu sii daayay programka marka uma baahnayn in badan la sii dhacdo buu waayo anu marran sii deystay developer option marka 7 jeer ku dhufato back soo dheh qaybta kaalay about dhakadeeda waxaad ku aragtaa hadduu si sax kugu soo baxay waxaad ku aragtaa developer option sadaragtaa developer option ayaad ku aragtaa developer option kaas aad dooranaysaa insha Allah developer option ka dhexgalaysaa developer option ku dhex dhufo dhexgal deetana sarawad horta marka ugu horeysa saas uu xidhan yahay developer option ku xagga ayr ku xidhan xagga ayr marka tigta saar soo enable noqdo deetana okay dheh deetana sarawad waliba sarawad ilaa intaad ka soo gaadhayso saddexdan option sarad wadaysa ilaa inta saddexdan option ka soo gaadhayso ka koowaad iyo ka labaad iyo ka saddexaad saddexda option ilaa intaad helayso saddexda option baa lagaga baahan yahay inaad hesho meel kale wax kale kama bedeli kartid developer option kan hadaanad aqoon u lahayn magaciisa baad ka garanaysaa qofka IT-ga uu ka garanaya developer waa qoftee IT-ga si fiican u yaqaan ayuunbaa meeshan wax ka bedeli karaa marka please wax kale la beddelin hadaanad aqoon fiican hadaad aqoon fiican leedahay you can do it laakiin hadaanad aqoon fiican u lahayn intan aynu ka dhiganay maantun ha dhaafin please waayo developer-kan waxyaabo badan buu moobilkaaga ku sababi karaya marka saddexda option aad raadinaysaa ay ku kala qoran tahay maxay ahaydey waxa ku kala qoran tahay Windows animation scale iyo transition animation scale iyo animator duration ta koowaad hadaad ku dhufato aniga way kala duwan inta u badan waxay taagan yihiin one buu taagan yahay
ama 1 iyo badh sidaad aragtaan dee scale cabir weeyaan meeshanu scale weeyaan marka sidaad aragtaan meesha waxaad ku aragtaa animation scale 0.5 times iyo animation scale 1 times iyo saasay usii soconaysaa. Iminka meeshan haddaan 10 ka dhiga maxaa dhacaya? Aanu eegna waxa dhacaya mobilkaygu suu soo kacaya ad aragtaan si wuxuu soo kacaya runtii tabcaana ayuu soo kacaya una degayaa. markaan keliga siiyo hadda suu soo kacaya ad aragtaan si tabcaan u soo kacaya. marka laba mid baa samayn karaysaa inaad office ka tiraahdo gebigiisaba inaad office tiraahdo iyo inaad 0.5 ka dhigato 0.5 inaad ka dhigato weliba kugula talin lahaa laakiin office ka oran kartaa 0.5 inaad ka dhigan kartaa choice-kaaga ku xidhan tahay. talabaadna waad imaan karaysaa inta badan 1 iyo 1 bay inta badan wuxuuba taagan yahay iyo 1.5 marka 0.5 ka dhiga ama off taana 0.5 ama off ka dhig. marka mobilkaagu hadda sidii hore u dhaama mobilkayga bal haddaan tijaabiyo suu soo kacaya. markii horena waa wada arkaynay suu soo kacay haddana aan eegna suu soo kacaya waad aragtaan suu soo kacay markiiba soo boodaya meel kastan taabto mobilkaygu soo boodaysa markiiba waad aragtaan. bal haddana si aad dib uga xasuusataan isbedelkan 10 ka dhigo suu soo kacayo waad aragtaan dee tabcaan weeyaan 0.5 na ka dhigo suu soo kacayo waad aragtaan tabcaanka 0.5 markaan ka dhigayna maxaa dhacaya suu soo kacayo waad aragtaan mobilkaygu markiiba markaa isticmaala habka walaalkiin Farxaan Xasan channelka subscribe saar haddaan subscribe saarin like-ta wixii commentiye su'aalaha ama caawima intii aqoontayda wixii commentiye su'aalaha xagga hoose commentiga igu reeba channelkana subscribe saar like-ta share asxaabtaadana la wadaag casharkan haddaad ka faa'iidaysatay ku qanciyay. Have a good day.